السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان إنك لهلايو وبدبادة قيسك أوفيشيال وحاني لهلا يعني جوا حريد حسن حسين الله يقان حوكسدي إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى عاو حال كان نغسي سعودون برامج كي نتحناها وانك اللي بدبادة قيسك إلهي سبحانه وتعالى يا وحب بدباديه لكن اسكودي ترى وناسنا ينك راعينا بإذن الله. موضوعنا عاو حكوساب سنية هي عرورتا carruurta waxa ay ka mid yihiin nimcooyinka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala oo dadka ugu deeqo mana siiyo cid uu gaar u jecel yahay oo mana diida cid uu gaar u neceb yahay. sidaad ogtihiin Ilaahay subxaanahu wa ta'aala cidii doono ayuu u badsiyaa muslimi gaala kay doonana haadana cid uu doonana ma siiyo. waatan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala aayad quraan oo ku leeyahay suuratu shura aayadda 49 ilaa aayadda 50. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. آيدا سو معناه ذو يهي إلهي سبحانه وتعالى عدو دونه قبل أيوسيا عدو دوننا قبل ويل أيوسيا عدو دوننا واسكو قدراه هدي دوننا عندنا ما بس هي وح ما ركتاي أولاد. haddaba insha Allah waxaan focus ka saaraynaa haddii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala awlaad uu kugu deeqo hooyo ahow ama aabba ahow waxa loo baahan yahay ilmaha Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ku siiyay in aad siiso jacayl xadidan oo aadan ka badbadinin. haddii aad gaarsiiso jacaylka aad u qabto inuu wax walba uu ku weydiisto waxaasoo aan ahayn wax suurtagelaya oo laga yaabo asaga akhlaaqdiisa diintiisa iyo wax walba mustaqbalkiisa ku saabsan wax ka ridaya inuu ka codsado jacaylka asiisay dartiis. jacaylka ilmahaaga u qabto waxa loo baahan yahay inuu yahay mid limid leh kaasoo maaragtay aad waajibka adiga Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ka saaray ilmahaaga aad ku gudanayso. aabaha iyo hooyada waxa loo baahan yahay in ay ku dadaalaan carruurta tarbiyadooda siiba aabaha inuu ku dadaalo ilmaha tarbiyadooda quraanka baristiisa salaada dariska ixtiraamkiisa ayaga dhalay oo hooyada iyo aabaha waalidiinta ixtiraamkooda iyo inta kale maaragtay ka mudan inay ixtiraamaan. sidaan ognahay adduunka waxa ay naloo keenay imtixaankaas oo ah kan ku baasi doono adduunka uguna gudbi doono aakhiro kaasoo qof waliba adduunkan uu kala tagayo wixii uu kasbaday. sidaan ognahay qofkii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu awlaad siiyo waxay ka mid yihiin imtixaanka adduunka qofka bani aadamka uu ku mari doono. carruurta Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu kugu deeqay haddii aad wadadii tooska ahayd ee loogu talagalay barbaarintooda tarbiyadooda akhlaaqdooda haddii aad u marto waxay ka mid tahay cibaadooyinka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala aad ugu dhawaan karto. aabaha waxa looga baahan yahay ilmaha in uu ku hayo isha waqtigay imaanayaan waqtigay baxayaan halka ay aadaan saaxiibkooda xun iyo midkooda wanaagsan. hadii jeer haddii aad ku dadaasho ilmahaaga tilaabo kastoo ay qaadayaan inaad ka warhayso waxaa xaqiiq ah ilmahaas inay noqon doonaan kuwa halka adiga aad u jahaysa aado. inta badan aabayaashu sidaan ognahay waxay u maleeyaan xaquuqda ilmahooda ay ku leeyihiin inay yihiin inuu dugsi geeyo quraan in ma garanaysaayo uu bariis siiyo iyo dhar inuu iibiyo laakiin intaa waxaa ka baxsan tarbiyadooda oo had iyo jeer maaragtay aan ku filnayn inta hadda aan soo sheegnay. aabayaasha qaar sidaan ognahay inta ayada maba laga hayabo inkastoo ay jiraan aabayaal badan oo ilmahooda mariyay wadadii loogu talagalay tarbiyo dhan walbo iyo sidii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ugu talagalay ilmaha in loo tarbiyeeyo. ma doonaysaa in ilmahaaga ay noqdaan kuwa lagu daydo dariska ilmahoodana ay mar walbo ay afka ku hayaan? haddii ay jawaabtaadu haa tahay waxaad samaynaysaa talooyinkan soo socdo. number 1 cunugaaga waa inaad siisaa jacayl ku filan. 2 cunugaaga inaad la saaxiibto. 3 had iyo jeer cunugaaga inaad la sheekaysato oo waqti siiso. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkan waxaan ka codsanaynaa inaad noo saarto subscribe nala saaxiib insha Allah saaxiibtinimadaada waxay noo tahay muhiim. wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.